cisbitaalka kalkaale magaalada Muqdishona ayaa waxa hawlgal caafimaad ka bilaabay dhakhaatiir ajnabi ah oo ka kala yimi Hindiya iyo wadamo kale. Sawirkaasi ay noogu soo dirtay wariyahayaga Farxiye Maxamed Yuusuf oo nooga soo waranta magaalada Muqdisho. isbitaalka kalkaale magaalada Muqdisho ayaa waxa uu bilaabay daaweynta taranka ragga, kiliyaha iyo kaadi mareenka, waxaana dhakhtarka ku takhasusay taranka ragga, kiliyaha iyo kaadi mareenka uu yahay dhakhtar u dhashay dalka Hindiya oo ka yimid dalkaasi Hindiya. adeegan ayaa waxay u qabanayaan shacabka qaybihiisa kala duwan kuwaas oo ka kala yimid gobolada dalka iyo gudaha caasimadda magaalada Muqdisho. gudoomiyaha isbitaalka kalkaale magaalada Muqdisho Dr. Cabdullaahi Jawhar ayaa waxa uu ka warbixiyay dhakhtarkan iyo waxyaabaha uu qabanayo, sidoo kalena wuxuu faahfaahin ka bixiyay adeegyada kale oo qabtaan shacabka qaybihiisa kala duwan. ilaha maadis kale noo fududeeyay inaan sameeyno campaign-kan oo socdo maalintii saddexaad. campaign-kaas oo uu sameynayo Dr. Rafish oo ka yimid wadanka Hindiya. dhakhtarkaas oo ku takhasus dhakhtarka kaliyaha iyo kaadi mareenka iyo daaweynta dhalmo-la'aanta ragga. isbitaalka waxa kale oo soo kordhiyay machine ESWL la dhaho. mashiinkaas oo sameeyo dhagxaanta burburiyo qofkii asagoo aan qalin loo sameyn ama jeexitaan aan loo sameyn. ilaa haddana maalinta saddexaad waaye. waxaa hadda qaliinada socdo 40 qof aan marayna ilaa 22 bishana qaliinka uu socon doona daaweyntii qaliinka. waxaan rajaynaynaa dad badan oo Soomaali oo gobolada dhan ka yimid inay ka faa'iideystaan maxaa la lahaa campaign-kan. ilaa 2 sano qaliinkan soo sameyneen dad badan oo ilaahay wax ku siiyay jiro oo ilmo ku dhalay oo ilmahooda sanadka labaad jiraan. marka ugu horeysay maahan dhakhtarka wadanka oo la qabsaday ilaa 2 sano oo imaanaya. labadii bilood ba mar oo yimaada oo qaliinadan sameeya dadka in loo diyaariyo sameeya. waxaan sameynaa sida qaybta haweenka oo kale dadka tubooyinka xiriinka kale tubooyinka loo fura. waxyaabaha kale oo isbitaalka sameeya waxaa kamid ah yani qaybta haweenka oo kale qaybta lafaha ENT-ga waxa la wixii oo maxaa la qaliinada waa sameynaa. isbitaalka kalkaale magaalada Muqdisho ayaa waxa uu yahay isbitaal inta badan adeegyada caafimaadka u qabta bulshada qaybaheeda kala duwan oo la ildaran caafimaad darada soo wajahday, iyagoona inta badan ay ka faa'iideystaan dadkaan awoodin inay iska dhiibaan qarashka caafimaadka. Farxiyo Maxamed Yuusuf.